imikii haddana waxa aan tirinaynaa oon baranaynaa magacda qabaa'ilkaan tiradooda soo aragnay ee 104 qolo ah ayaan bal hadda magacdoodii sheegaynaa oo yeedhinaynaa. waxa aan ka bilaabaynaa aqalka ceeleeye ee curadka ah. ceeleeye sidaan soo sheegnay waxa uu ka kooban yahay 35 qolo. bal qolqolahan u yeedhino annagoo u kala qaadqaadanayna sidan soo socoto, waayo ceeleeye waa badweyn dhan, kol kaliyaata ma wada yeedhinayne qaybta uu yahay baan u kala yeedhsanaynaa. waxaan ka bilaabaynaa reerka Yunus Muuse qabaa'ilkiisa. bismillah. odax gob weeyaan magaciisu hadda odax gob qabiilka Yunus Muuse odax gob caan ku yahay. waa qolama waa odax gob ayaad ka tahay qolada. sidaasaan bilaabaynaa. kow odax gob reer xubla ah. reer xubla maxamuud waa curadkii. odax gob reer xubla ah. labo odax gob reer geedi ah. odax gob reer kuul ah. odax gob reer macallin ah. odax gob reer ashkir ah. odax gob reer abiib ah. odax gob reer jiilaal ah. odax gob cali guran ah. odax gob cali xayta ah. odax gob gadiidheer ah. odax gob xadhkasa ah. odax gob cali carabla ah. odax gob muuse cadda ah. odax gob reer galaan ah. odax gob jalaf ah. odax gob albaasa ah. odax gob daahjoog ah. iyo odax gob geela macallin ah. waa 18 qolo. ma iga haysaan? 18 kaa qolo waa Yunus Muuse ama odax gob. laga yaabo qabaa'ilkan inay qaar isku dhow yihiin, ay magacna wada sheegtaan, ay boqolkana isla bixiyaan, laakiin annagu waxa aan u sheegaynaa sida aan ugu naqaano qolo ahaan. soo soco. waxaan imanaynaa qolooyinka ku midaysan aqalka Sacad Muuse ee ilmo Sacad Muuse ah. kow Sacad Muuse oo reer Makaahil ah. Sacad Muuse oo Yaruun ah. Sacad Muuse oo reer Muuse ah. Sacad Muuse oo reer Guulana ah. Sacad Muuse oo Xarla ah. Sacad Muuse oo Dhabac ah. Sacad Muuse oo Odowaa ah. waa 7 qolo. 7 qolo adiga haysan ma? 7 qolo waa Sacad Muuse. aan ku sii socono wiil Muuse une waxaa jira 2 kale oo reer oo iyaguna wiil Muuse una waa Qasimure iyo Bide. iyagu halkoogiiba iska taagan yihiin, weli way kooban yihiin. qolo unbay si qoloma akhtimuraan ahayn buu odhaniko, ama qoloma ama Bidaan ahay. laakiin qolooyinkan maadaama ay bateen, ay sii kala baxbaxeen, isma sheegtaan, ninba qolay sheegtaan. sidaa dartood baan u kala qaadnay. halkan waxaa jira markaa Muhure, isaguna kidimo hoos uu ka kooban yahay. insha Allah waan baran doonaa. Bide sidoo kale waa Bide Muuse oo isaguna kidimo hoos uu ka kooban, waan baran doonaa. laakiin intaas waa wiil Muuse. aanu imano mamaasan Cabdiraxmaan Ceeleeye. waxa uu ka kooban yahay ilaa 8 qolo ayaan weli helnay. waa inta aan helnay hadda 8 qolo ayaa halkan inoogu qoran. kow mamaasan Bahfuur 2 ah. 2 mamaasan reer Cigaal ah. 3 mamaasan Bah Xarlaad ah. mamaasan Badaraxaan ah. mamaasan Carab Weyn ah. mamaasan Fiqiyoonis ah. mamaasan Abtisama ah. iyo mamaasan Colow ah. laga yaabaa inaa reera aan reer keliya kala fadhiidhoon ninba 2 jilib ka kala dhigo. waa la sixi doonaa insha Allah. laakiin imkaan sidaa baan u helnay. cilmi baarista aan sameynay waa sidaas. halkaa waxaa noogu dhan wiil Muuse maahine aqalkii Ceeleeyaa noogu dhan, Muuse iyo mamaasankiisiiba. aanu soo gudubno aqalka labaad oo ah Hawlaqaade ama walaaldoonka. waxa uu ka kooban yahay oon helnay 16 qolo. 16 qolo waxay kala yihiin de labadii kidin uu kala qaybsamay walaaldoonku ayay kala yihiin, laakiin guud ahaan baan u yeedhinaynaa sida aan helnay. waxa weeyaan kow Rooble Axmed, Hawlaqaade oo Rooble Axmed ah. 2 walaaldoon Cali Hayiil ah. 3 walaaldoon Qurbaalo ah. 4 walaaldoon Bulbul ah. 5 walaaldoon Kota ah. 6 walaaldoon Geelabey ah. walaaldoon Makaahil Celi ah. walaaldoon Geelahagar ah. walaaldoon Khadar ah. walaaldoon Indhalacag ah. walaaldoon Gaada ah.
walaaldoon caareen ah walaaldoon axmed ah walaaldoon beenla ah walaaldoon baxar ah walaaldoon halas ah sida aan sheegnay 16 qolo ayaan halkaa sheegnay sida aan sheegnayna qolooyinkan qaar baa isxixiga oo si sheegta tusaale ahaan kote boqorbaale iyo bulbul reer xasan ba ayaa la yiraahdaa halka kale waxaa ugu jira afar qolo oo la isku yiraahdo cali gadiid la isku yiraahdo laakiin anagu waan kala sheegnay sida aan qolo ahaan ugu naqaano 16kii qolo ee hawla qaadamay iga haysaa soo soco waxaad u imaataa aqalka saddexaad oo holla ah ama fuurlabe aan bilowna markan fuurlabe waxa aan helnay oo noo qoran 14 qolo 14 qolo sidanay kala yihiin kul sida aan mar walba aan sheegayno aqal walba waxa uu laba kidin buu leeyahay labadiisii kidin qolooyinkan waa u kala qaybsamayaan laakiin guud ahaan baan sheegaynaa inta qabiil uu reerku ka kooban yahay holla waxa uu ka kooban yahay 14 qolo ayaan weli helnay insha Allah waan baran doonaa in kale hadda noo hadhayna kow fuurlabe dulcad ah fuurlabe hanis ah fuurlabe faraxmataan ah fuurlabe reer nuur ah fuurlabe reer geesaale ah fuurlabe abubakar ah fuurlabe reer xaaji ah fuurlabe reer maxamuud ah fuurlabe gaashaangiir ah fuurlabe nimisama ah fuurlabe muldati ah fuurlabe suufi ah fuurlabe boodbood ah iyo fuurlabe ceelay ah ceelay nuurka ayaa ka mid tahay oo reer nuur bay gashaa sida aan wada ognahay laakiin reer ballaaran bay noqdeen galbeedka fog ayay degaan dunyar bay galaan markaasaa darteed waa qolo isku taagta baan odhan karnaa inkastay reer nuur ka mid yihiin aan ku sii soconno waad iga haysaa 14kii qolo ee fuurlabaha aan ku sii soconno aqalka afraad waxaa kaalinta afraad noo soo galay wardiiqu waxa uu ka kooban yahay 9 qolo oo keliya 9 qolona sida aan mar walba sheegayno labadii kidin uu aqalku lahaa bay u kala qaybtamayaan laakiin guud ahaan aan sheegno waxa ay kala yihiin sidan wardiiq reer xasan ah wardiiq reer samana ah wardiiq taala dhuuq ah wardiiq yeesuf ah wardiiq gumcadla ah wardiiq saleebaan ah wardiiq reer barra ah wardiiq abdiraxmaan ah iyo wardiiq dalas ah 9kaasay ka kooban yihiin aan ku sii socono 9kaana labadii kidin ba u kala qaybtamayaan kaalinta afraad waxa ay noo soo galay ama shanaad han odhanay waxa ay noo soo galay waa qoroon ama uurweyne waxa uu ka kooban yahay 10 qolo ayaan helnay laga yaabo inaan qaladnay oo aan reere isku mid kala qaadnay oo badinay ama de reere dhan oo magac guud ka sheegnay reere isku mid ahayn laakiin 10 qolo ayaa halka noogu qoran insha Allah cidii nooga cilmi roowayna sixi kartaa aan sheegna markan 10 qolo ee waa qoroonka fiqi Cabdallah kala baxayaan laakiin guud ahaan qabaa'ilkoodu waa sidan kow uurweyne gareera ah uurweyne tabadeer ah uurweyne abiib ah ama usaas uurweyne shaawish ah uurweyne idlajana ah uurweyne faradheer ah uurweyne sahalgadiid ah uurweyne fataax ah uurweyne geedimadu ah iyo uurweyne gomacad ah gomacad kolka 10ka qolo ayaan helnay oo jira laga yaabaa inaan wax qaladnana mar walba qabaa'ilkan wax waan ka qaldi karnaa insha Allah inaan la saxaan rajaynaynaa halkaas uu noogu dhan yahay uurweyne 10kiisa qolo aan ku sii soconno aqalka ugu dambeeya ee lixaad waa aqalkii horoone ee ahaa guro dambayska odagii Ciise waxa uu ka kooban yahay oo halkan inoogu qoran ilaa 20 qabiil ayuu ka kooban yahay aqalkaas horoone waxayna u kala qaybtamayaan labadii kidin ee deegel walaal iyo habar walaal guud ahaanse sidan soo socoto aanu yeersano qabaa'ilka horoonaha kow horoone biyaseer ah horoone baalay ah horoone caligeedi ah horoone caligeedi ah 4 horoone wacays odawaa horoone tuli horoone ololaa horoone miicaad horoone timacadde
hooroone sanqool ah, hooroone samatar ah, hooroone calikaweyn ah, hooroone gaban ah, hooroone maroodigan ah, hooroone cawsow ah, hooroone caligaal ah, hooroone dawaalo ah, hooroone mahara ah, hooroone calidhiir ah, hooroone cali qoorweyn ah, hooroone reer buraal ah. cali baa yaa ku badan kolka 20 qolo laga yaabo inaan qaladnay waana la sixi karaa mar walba sidaasaan ku celcelinaynaa waayo aad baan u fara badannahay meelo kala fogna waan galnaa aqoon buurana la isku malayo hoode gallinkiibaa kala fog reeraha qaarna waa ay yaryar yihiin reeraha qaarna aad ba u fara bateen oo way ku khalkhalinayaan markaasi halkaasi waxaa noogu dhan 20 qolo oo hooroona ah guud ahaan marka la isku wada geeyo qabaa'ilkii beesha ciise waxa ay dhan yihiin 104 qolo 35 qolo waa ceeleeye 16 qolo waa hawla qaade 14 qolo waa holle 9 qolo waa wardiiq 10 qolo waa uurweyne 20 qolona waa hooroone. salaamu calaykum.